ama idinka awoodda yeelan oo maalin walba qof bilaadan ay xabad ku dhufan ama awoodda dawladda shaqaynaysa laakiin dib dambe uma dul qaadan doono ma dhacayso in marba maata lagu laayo qoryaha halka lagu sito waa waxaan dhacayn abadan waxaan filayaa hawshii iyo arrinkii halkan ka taagnaa ee labada beelood u dhaxeeyay ee muddada badan soo jiitamay laga heshiiyey qulqulada ay soo dhex gashay iyadoo la kala qaadanayo wixii la isugu xukumay cid walba iyo wixii xaq la isugu lahaa la isla gartay markii aan gobolka imi waan la koobsaday hawshii iyadoo markaa bilow hawshan dib u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin hadday maanta inoogu soo dhamaatay in yar baa inoo harsano intaasina waa fudud waa wax yar oo fudud waa si la isu garto arrinkaasi waxaan leeyahay guul iyo gobonimo inoogu dhamaaday hal mid uun baan doonayaa inaan idhaahdo hadhowto wuxuu yidhi maytil waa kayd rag meesha la yidhaha ari caddeeye dee somaliland bay ka mid tahay waddadii caasimaddii soolla waatan iyaduna waa marinkii inamada yarar ee qoryaha sitaa dee waa inamadiinii odayaasha halkan fadhiyo in badan baan waxaan maleeyahay dawladdu idinka dul qaadatay in inamadiinu qoryaha ku laafiyoodaan laakiin dib dambe uma dul qaadan doono ma dhacayso in marba maata lagu laayo qoryaha halkaa lagu sito waa waxaan dhacayn abadan hadhowtaba ha odhanina waxaan idin odhanayaa waar nin walowba qorigaaga halkaad geysanaysa iyo inaad iibiso saa doonaysa adigu yaal qori dambe ninka ari caddeeye dhex jooga aanu ku aragno tallaabo sharciga baa laga qaaday ma maqlaysaan iminkaba saani kor u hadla hawsi ma jirto reer walba guddida reerka labada beelood guddidoodunbaa u qoolan wallaahi runtaan idiin sheegaya waxaan idiin sheegayaa cid dambe oo isbaryaysaa dhibaatada ina haysata reer somaliland waynu isbarinaa waa la iska xishoodaa taasaa dhibta keenta dulqaad dambe wuu soo dhammaaday maalin walba dhib taagan baa halkaa loo joogaa ma dhacayso ama idinka awoodda yeelan oo maalin walba qof bilaadan ay xabad ku dhufan ama awoodda dawladda shaqaynaysa waar dad maata ah oo maalin walba la isla dhex jiidayo oo kibir la isugu dhex jiidayo socon mayso yeeli mayno waxaan u malaynayaa ninkii maqlayaba uu maqlayaa waa is hor fadhinaa cidi idima maqna waa yeelkii iyo waxgaradkii iyo culimadii cuqaal baa ku fadhidaan guddoomiyeyaal baa ku fadhidaan culimaaudiintii baa ku fadhidaan tujaartiinii baa fadhida cid aan joogin maanta waa labadii beeloodba waa isu dhanti waar waxaad doonaysaan baan u malaynayaa dee gacan kulul waa idinku noqonaya waxaan idinku noqonayaa dhibta iyo dadka ku maqan ayaynu ognahay carruur yaroo halkaa fadhida aabayaashood ku dhintay kibir labada dhinacba waa kibir waxaan idin leeyahay in maadeerayaal magaaladii ku noqda idinkoo isku mida taga waxaan yararee harsan waa la iska dhammaysanayaa sida ugu dhaqsaa badanna waxaan doonayaa wixii labada qoloba ku dhiman inay usoo dhammaystirto labada qoloba waxbaa ku dhamaystira ku dhiman waynu ognahay waana waxaana bixinaysaa wixii ka weynaa waa idinku dhiman yihin taasaa idinka badan mid walba ku maqan sida ugu dhaqsaa badan le weliba waxay ku qurux badan tahay inaad sida ugu dhaqsa badan aada guddidiinu isugu timaadaan labada guddi oo muddo u qabsataan ma maqlaysaan wax iska jiitama oo furan lama rabo wax furan cidima doonayso waxaan dee bini aadan baa le raggiina koofiyadaha qaatay ee odayaasha waa idu ixtiraamaya dee idinkuma lihidin waa laga yaabaa qaarkood inay ku jiraan laakiin dee ummad baa le da qof bini aadan oo dhiban baa le waxaan qofkan dhaawaca ama qofkan waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaa badan le ciddii wixii xaqmaya waxaan filayaa waa wada xaqmayaan dadka la xaqayaa in sida ugu dhaqsaa badan la dhoodho wixii la xaqayna waa la xaqay waa arrin maareeyaa jiitanka inaga daayay dadka waxay isku dilaa waa jiitan anigu idinka yeelmaya ka guddoomiyahan haw ari caddeeyana arrinkaa isgaadhsiiya dhallinyarada hubka sidata ee deegaanka u dhalatay ee labada beelood ka soo jeeda ee ciidankii qaranka iyo kii booliskii dowladda labaduba waa qaran ciidan qarane oo dhex maraya oo annagoo dhex marayna halkaa degta lagu sito
wax dhacaya dib u dhacaya ma hadhowba hooranina nalooma sheegin nin walowba hubkaaga meeshaad geysanaysa isaga jirta magaalada hubkaanu ku qabadanaana celis male ma ismaqlaynaa hub laysu celinayaa haba yaraatee ma jirto dhalinyarada khamriga ku iibisa magaalada ayaan fariin u dirayaa ku qarsoon nin walba kuma qarsoonay dee raggooda dhabarka gelinaya dee waajibaad waa kaa taliya qaybtu tallaabo sharciya laga qaadaya hadhowto waxaa laga yaaba raggiina culimada ah ee masaajidka ku jira ayaa kaa u hadlaya oo imanaya halka wallaahi wuu raacaya jeelka wallaahi u raacaysa ma nin khamri iibinaya ayaad intaad koofiyada soo qaadataan oo cumaamada soo qaadataan oo xafiis gobolka ay ku timaadaan ama qaybtii timaadaan booliskii timaadaan baan oranaysaa ina hebel baan u hadlaya wax dhacaya ma waar ummadda waa mariseena inta kale aynu badbaadino qorigan faa'iido inooma ahayn maadeerayaa faa'iido inooma laha ha la dhigo ilaahayna ha laga baqo maatada iyo carruurta yar aynu ku tumanayno ee maalin walba isla jiidhaynana ka daaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته